بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaanu ka hadlaynaa casharkeenii labaad ee maadada structural engineering 1 problemkan oo kale ayaan rabay laakiin ardayda oo casharka dhigato structural 1ka ayaa soo codsaday in problemkan la fahansiiyo insha Allah soo marka waxaan isku dayaynaa problemkan waa problem simple kii hore wuxuu ugu duwan yahay just UDL kaas ayaa ku cusub bas inta kale waxa waaye concentrated load soo marka ama point load macnaha saad u taqaanaan hal force oo taagan waa soo marka wuxuu ahay example-ka haddaan tusaale yar idin siiyo like example-ka wuxuu la mid ahay saan oo kale ahay intaan marnaa inaan sawirnaan doonayna mogtahay soo mid saana iyo mid saana iyo halkan oo UDL ahay soo marka inta waxaa haysanaa 500 intana 1000 halkan waxaa haysanaa 200 per meter intana waxaa haysanaa 2 intana 2 intana 4 meter soo marka xisaabtan yarta waa usoo laabanayna laakiin problemka aan haysanay oo aan hadda aan doonayn inaan sharaxno example-kan oo ahay soo marka hal mar usoo laabano casharkeeni soo marka aymaano waxaa haysanaa horta problemkan waa simple supported beam waxaa haysanaa hinge support iyo roller support oo aan horey usoo sharaxnay hinge support wuxuu leeyahay laba unknown reaction mid oo horizontal ah iyo mid vertical ah halka rollerka uu leeyahay hal xabo vertical ah soo marka waxaan haysanaa waxaa given 500 newton 1000 newton iyo UDL kaas oo ah 200 newton u kaadi 800 kan say ku maatay waa sheegi doonaa iyo distance-gana waa 4 meter distance-ga iska dhaaf hadhow aan ku sharxi doonaa 4 meter 2 meter iyo 2 meter soo marka waxaan doonaynaa inaan sawirno SFD BMD draw sorry waa iloway so waxay draw SFD and BMD so draw SFD and BMD so marka waxaan doonaynaa inaan sawirno SFD BMD si loo sawiro SFD BMD waa inaan soo heshaa unknown reaction macnaha reactionada aanan la garanayn meeqa reaction la garanayn saddex reaction hadda la garanayn RX oo dhankan A B C D aan kala magacaabay horizontalka mar walbo XY verticalkana Y waa soo marka reaction at A X oo horizontal ma naqaano reaction at A Y oo vertical ah ma naqaano waa soo heli doonaa maanan la siin laakiin hadda solutionka waa gaari doonaa si loo helo iyo 500 newton 1000 newton UDL kana haysano oo ah 200 newton per meter soo marka meeshan maadaama ay laba reaction unknown taalo pointigan ayaan qaadanayaa waxaan soo helayaa RB soo saan ku soo helna marka inta imaado 500 inta aanan calculation u guudo gelin waxaan doonayaa example hadeetii kii hore aan celiyo sida lagu soo helo soo marka example-kan hadda markaad inta imaataan meeshan waxaa yahay 500 newton 1000 newton iyo 200 newton per meter example-keenii hore wuxuu ahay point load loadka waxaa loo qaybiyaa saddex loadka oo lagu siinayo tabis okay inta noocay yihiin iska dhe tabis of loads saddex nooc ayaa loo qaybiyaa muhiimadu waa kana waxaa lahay point load oo ah loadkan oo taagan oo kale point load waa ma fahanteen loadkan kan oo kale point load waa labo oo ah UDL oo laga soo gaabiyay uniformly distributed load oo ah kan oo badanaa saan loo sameeyo iyo waxaa jiro varied distributed load mid la VDL jiro oo ah varied distributed load raalaha xoogaa hadii farteeda xun tahay oo ah asina triangle-ka badanaa triangle-kan wuxuu wataa
load soo wataa insha Allah cawada marka waxa kan waa soo qaadanay haddana waa haysanaa marka UDL ka iyo point load kan iyo VDL kan saddexdaba waxaa ku qasbanahay point load hadii la siiyo caadi waaye point load ka waxaa ku dhufanaynaa distance marba meesha reaction ka qaado laakiin UDL kan iyo VDL kan oo ardayda ay qaasatan UDL ka example kan ku jiro ardayda ay soo weydiin UDL ka hadda UDL kan haysano ka soo qaad saas ka soo qaad waxaan haysanaa 200 oo newton ah per meter distance ga haysano waa 4 distance ga haysano waa 4 meter 4 maxaa kala bar u ah 2 meter iyo 2 meter so 5 suma meeshan 200 ka haysto UDL ka distance ga dhan oo ku fadhiyo waa 4 waxa leeyahay 200 times 4 meeqa waa 800 oo ah macnaha distributed load keega oo kan ahay waxa ku qasbanaya inaan ka dhigo point load oo ah sida kuwan oo kala hadaa kan haysatana waxa soo helay VDL kan sidoo kale waxa u bedeli doontaa point load asina dhamaan loadiska waxa la isku keenaa point load kan way fahamtay sama central load wala macnaha load taagan oo dhaxay soo marka UDL kan si loo bedelo waxaa ku dhufanaysaa distance oo ku fadhiyo meeqa 200 oo lagu dhuftay distance-giisa oo 4 ah 4 meter meeqa waa 800 newton soo marka 800 newton ka xagee dhiga 800 newton ka waxa dhiga dhaxbartamaha distance-ga oo ku fadhiyo UDL ka way fahanteen oo maleen 800 gooni waxa ugu soo bixiyay ardayda macnaha UDL ka macallin fahansiida VDL kan insha Allah cashirkan kan xigo ama next example 4 ka ama problem 4 ka si fiican u arki doona marka hadda waxaan leenahay VDL ka waa naqana UDL kana waxa u bedelay point load wax kale ma nothing waxa u baahan tahay malaha 800 soo marka aan halkan imaano calculation keeni waan aragnay qaabka loogu bedelo 500 marka momentiga waxa ka qaatay point A aan ka qaatay waxaan haystaa 500 oo lagu dhuftay distance-ga oo ku fadhiyo oo ah 2 waan sameeyay 500 oo lagu dhuftay 2 then waxaa inta ka haystaa 1000 distance-ga oo point A u dhaxeeyo point A halkaas laga imaanaa meeqa u dhaxeeyo 4 u dhaxeeyo 2 plus 2 oo ah 4 meeqa waa 1000 oo lagu dhuftay 4 wax kale ma aan sameyn loadkeygii oo UDL load ka ahay waxa u bedelay point load dhaxbartay ya dhigay 800 waa kana mo 800 inta meeqa haysto 4 meeqa inta ka qaat marka iga jiro 2 6 meter waa mujeda wax kale ma sameyn 4 plus 2 dan mu baahni asidan mu baahni because asidan ma isticmaalayo load kaas u baahanayo meesha u jiro point A inay fahanteen oo maleen load kaas 800 ka meesha u jiro point A ayaa u baahanayo soo marka 800 oo lagu dhuftay waxay noqonaysaa 6 example badan aan ka sameey doona oo fahmi doontaan UDL ka waad qanaysi loo bedel UDL ka waxa ku dhufanaysa wax lagu siiyo oo given ka waxa ku dhufanaysa distance-ga oo UDL ka ku fadhiyo oo 4 ah 4 into 200 waa 800 halkaas aad dhiganaysa distance-gana meesha dhigaysid waa kala baray distance-ga oo UDL ka 5 iyo xataa 2.5 oo kala bixinay way fahanteen oo maleen soo marka waa kana 800 oo lagu dhuftay 6 meter ko ah 2 plus 2 4 plus 2 dan 6 oo kala bartamay soo RB oo halkaan meeqa u jirtaa iyadana dhamaan totalka 8 ay u jiraan 4 plus 2 plus 2 8 soo RB waxa soo helaa 1225 newton summation of y waxa vertical forces ka ama downward ha noqdaan ama upward ha noqdaan hada kan waxa haysanaa annaan laakiin inta u socda kor u socda RAY waatana plus ama inta ka bilaw RB oo vertical force-geeda aan soo helay plus RAY dan oo vertical force-geeda aanan aqoon laakiin hadda aan doonayo inaan helo oo u socoto upward minus 500 kan oo hoos u socoto minus 1000 kan oo hoos u socoto minus sidoo kale 800 kan oo point load ka aan ka dhigay waa la qaadanayaa siina soo marka waxa soo helaysaa RAY na waxa haystaa 1075 newton so summation of horizontal force waa soo helaa horizontal force 0 waa sababtoo ah
ma haysto vertical distance waxaa haystaa horizontal force kuwan maxaa waaye vertical force waa vertical load waa maxaan ku dhufanayay horizontal distance yaa ku dhufanayay so marka haddii la siiyo horizontal load waxaa u baahanaya vertical distance so marka haddii oo beam oo kale oo kor lagu qaadi lahay oo halkaas la geey lahay raxta qiimo distance ayaa la sii lahay so waa soo helaa laakiin hadda vertical distance aa ku dhufta ma haysto marka so like zero waay so marka ay imaan SFD waa ilooga casharka hore inaan mention gareeyo SFD waxaa laga sameeyaa waxaa la dhahaa SFD isu geynta wadarta falaaraha vertical forces awoodaha taagan not macnaha wax jiifo haddii tan xitaa oo qiimo ah ilaa oo kor jirleed SFD ma ahan horizontal force looma isticmaalo SFD waxa loo isticmaalaa vertical force way garateen oo maleyna SFD waxa loo isticmaalaa vertical force so marka ay imaano waa isu geynta wadarta isu geynta macnaha kan minus wato kan plus wato isu geey wixii soo baxa waxa laga rabaa inay zero xisaabtaada inay zero iskento SFD ga zero hadoo iskeenay calculation kaagu wuu saxan yahay hadoo zero SFD ma waayo calculation kaaga ayaa wax ka qaldan waa ku laabanaysaa wabillahi tawfiq so marka aan maana SFD calaamadana sawirano oo zero ah so qalinkii bedel calaamadan oo zero ayaan sawiranay halkan waxaa soo helnay RAY oo ah 1075 maxaa u socdaa plus ay imaatay upward ay u socotaa maadaama plus ay imaato upward u socoto oo vertical force xisaabinaya vertical force plus waxa weeyna kor ayaa aado oo 1075 ayaa aaday labadan load waxba uma dhaxeeyaan wax load oo u dhaxeeyo malahan labadan force macnaha RAY dan oo kor u socoto -500 kan beam code macnaha waxba uma dhaxeen dad means haddaysan waxba u dhaxeenin waa soconaya ilaa aan ka gaaro -500 ka so marka haddii aan haystay 1075 500 kan intee u socotaa hoos ayay u socotaa haddii kor markaa u soconaynay plus oo kor ayaan u soconay soo maaha oo plus aan isticmaalnay so marka kan hadda maxaa haysanaa waxaa haysanaa 500 oo downward 500 oo downward marka waa -500 meeqa hela 575 575 halkaas ay imaanaa so forcigan iyo forcigan maxaa u dhaxeeyo wax oo load ma u dhaxeeyo wax load ma u dhaxeeyo load marka ku dhahay waxa waaye inay u dhaxeeyaan load kan oo UDL ka iyo VDL ka badana waxba load uma dhaxeeyo soo waa soconaya ilaa halkaas ay ka tagaa meeqa waay 575 halkaas marka tago ayaa waxa la kulmayaa load ah 1000 oo minus u socdo meeqa haystay 575 minus 1000 نفهموها maxay soo baxay -425 mujadin -425 soo halkaas ay tagaya maadaama ay minus tagtay waxaan calaamadii oo line ka ay oo itagna imaginary line ka ayaan hoos ugu dagaya -425 halka markay imaad halkan soo fiiriyo forcigan RB oo qiimihiisa soo helin oo 1225 waxaan ka hadlayaa forcigan fahma marka aad xisaabinaysid SFD loadkan iyo loadkan waxa u dhaxeeyo 800 load ayaa u dhaxeeyo 800 load maadaama u dhaxeeyo 425 ah 800 kan inta u socdaa waxa u socdaa minus ay u socdaa maadaama oo minus u socdo aan haystay minus kale 425 minus 800 ku darba minus 800 soo maxay soo baxay 1225 minus 800 1225 soo waxaan ku dhahay -425 tan -425 tan soo helay waxaan ku daraa maadaama labadan load ay u dhaxeeyaan load kan oo point D ah iyo load kan point B ah waxa u dhaxeey load ah 800 newton marka loo isku daraa oo -425 haystay -800 meeqa waay -1225 aniga waxaan joogaa wali meeshaan aan joogaa haddii oo halkan aan joogo marka say u sawiraa waxaan u sawiraa hadeeti maxaan isticmaalay horizontal line caadi aan isticmaalay hadeeti waxaan isticmaalay horizontal line caadi aan isticmaalay laakiin markaan structure-kayga waxaa haystaa UDL maadaama ay UDL haysto SFD-gayga wuxuu noqonaa incline horena cashirkii horena waa sheegay SFD-gayga wuxuu noqonaa incline maadaama oo load u dhaxeeyo loadka u dhaxeeyana oo yahay UDL loadka u dhaxeeyana oo yahay UDL SFD-gayga wuxuu noqonaa incline soo marka waxaa imaanaya halkaas ayaa imaanaya oo ah minus 1225 iska dheh
minus kun laba boqol labaatan iyo shan inaa arkaysaan oo maleynaa inta aan ku weyneeyo minus kun laba boqol labaatan iyo shan halkaas iska dhig soo marka halkan ayaa taagana minus kun laba boqol labaatan iyo shan rb ani maxaa soo helay rb ani waxaa soo helay kun laba boqol labaatan iyo shan kor ayaan u soconaya waa halkaas dan waxaa helayaa zero way fahantiin oo maleynaa maadaama sfd-geyga oo noqdo zero sfd-geyga oo noqdo zero example-keyga uu dhammaystiran yahay oo uu saxan yahay oo calculation-keyga uu saxan yahay sidaas ayaan ku oganaa marka bmd aan sawiro bmd is nothing but the area of sfd is very important so marka areada sfd ayaa u baahnaa meeqa shape ayaan haystaa waxaan haystaa 1 2 3 waxaa haystaa laba rectangle way fahantiin oo maleynaa kan waa rectangle oo square kan waa rectangle kale kanna waa trapezium kana nagu cusub waa helaynaa qaab kale waa areadiis waa naqaana area of trapezium lixaadka toddobaadka lagu soo qatay shanaad soo rectangle maxaa lagu helaa rectangle waxaa lagu helaa xitaa ma isticmaaleen inta imaanaynaa rectangle waxaa lagu helaa base times height basekeygan meeqaa ii waxaa ii distancegeyga oo ah 2 mitir soo heightkeygan meeqaa ii 1075 soo 1075 oo lagu dhuftay labo mu baahan inaa qorto meeqa waaye 21,250 soo marka maadaama uu kan plus yahay haddoo minus ala intaa u socolahay maadaama uu kan plus yahay waxaan u soconaya upward shape-ka aan u soconaya ma curvia ma incline ma horizontal line waxaa ii structure-ka ii sheegaa maadaama sfd-geyga uu yahay horizontal oo positive yahay maadaama uu horizontal yahay waxaa laga baahan incline areadan ee kor jirto waxaa u baahanaya inaa kor aado incline oo kor aadaya oo ah 21,50 kan asina maxaa waaye waa plus waaye kor ayaa usii soconaya areadiis waa kusii daray plus aa leedahay maadaama uu plus yahay plus meeqo areadiis waa maxay waa 575 oo heightkiisa waaye oo lagu dhuftay basekiisa oo ah 2 mitir 575 oo lagu dhuftay basekiisa waa 2 mitir soo meeqo waa 3,300 waa qorto meeshaas 3,300 mar walba sfd-ga markoo soo jaro sfd-ga hal mar aan u celino waa ilowne sfd-gan markoo soo jaro oo soo sameeyo oo plus ka soo tago oo minus soo aado bending moment wuxuu noqonaa maximum moment meeshaan noqonaysa meeshaan waxay ahayd meesha ka soo jaray sfd-ga plus ku soo tago minus ku soo tago soo bending moment qiimaha ugu sareeya meeshaan ayuu ku aadaa way fahanteen point of conversator ma liijir waa iloow soo marka 3,300 ayaan soo helay waxaa haystaa markan area of trapezium oo nii qoraa area of trapezium waxaa lagu helaa half plus a plus b oo lagu dhuftay distance a plus b maxaa waa labada load aan haysto halfkan soo qoro labada load aan haysto meeqa waa kan meeqa waa 425 kanna 1,200 minus iska iloow anaga dhib ma lahan 425 plus 1,225 lagu dhuftay distance oo ku fadhiyo meeqa waa 4 soo maxay soo baxayo sameey 425 lagu daray 1,225 loo qeybiyo 2 lagu dhuftay 4 3,300 miyay keentay mujeedaa 3,300 ii keentay laakiin 3,300 minus ii keentay soo aan maxaa taaganaa pluski 3,300 haddii laga jaro 3,300 zeroda imaanay shape noocee ku imaanay haddii aan haysta sfd-gay incline haddoo incline yahay bmd-gay wuxuu ku imaanaya curve inay fahantiin oo maleynaa haddii bmd-gay sfd-gay haysta incline bmd-gay wuxuu ku imaanaya curve soo marka example-keeni cawada halkaas ayuu ku egyaa oo waana ka shaqeynay ardayda ay noo soo dirtay soo bmd sfd saas ayaa lagu sawiraa waa very simple just waxaad xasuusanaataa udl-ka oo waxaan dhahay udl-ka haddii udl qiimo na la siiyey for example kasoo qaad udl-kan in na la siiyey 10 bar mitir totalka aan haysanan uu yahay 20 mitir for example firi 20 mitir soo marka waxaa ku qasbanahay 10 oo lagu dhuftay macnaha halkii mitir ba markaa dhaqaaqday 10 mitir dhaqaaqay waa lagu leeyahay halkii mitir dhaqaaqay 10 dhaqaaqay halkii mitir dhaqaaqay 10 kala dhaqaaqay soo marka waxaa u baahan tahay udl-ka waxaa waa 10 lagu dhuftay 20 waa meeqo
toban lagu dhuftay 20 waa 200 200 inta dhigaa marka 200 inta dhigaa 200 waxa dhigaa dhex bartamaha 20 kan oo ah 10 iyo 10 intoo 10 iyo intoo 10 ayaa labadeed 100 dhigaa marka aan u bedelayo UDL ka marka aan u bedelayo point load soo marka hadhow marka rabo qaybta raba qaadana hada xaq qaatana qaybtan aan qaadana no problem asas ay lagu bedela cashirka dambana waxa ogaa doontiin VDL ka qaabka loo bedelo insha Allah iyadana very simple way oo cashirkiisa inta arki doono insha Allah waxaan rajaynayaa khayr ardayda batch kana aad iyo aad ay u dadaalayaan oo structural 1 ka very